lacagtan haddii aad ku maalgashan lahayd $100 kaliya muddo 2 sano ka yar, maanta waxaad haysan lahayd in ka badan $19,000. taasi sida ay ku dhacday muuqaalkan ay ka hadlaynaa ka badan ayaa suuqa laga sameeyaa. hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waa $100 kaliya. haddii aad gashan lahayd lacag ka badan, maanta waxaad heli lahayd lacag aad iyo aad u tiro badan. muuqaalkani maanta wuxuu ku saabsan yahay marka 3 lacagood haddii aad maalgashato mustaqbalka soo socda aad ka taajiri doonto hadduu Alle idmo insha Allah. ku soo dhawo muuqaalka. السلام عليكم. kusoo website haddii aad tahay markuu ugu horeysay waxaan kaa codsanaynaa in channelka subscribe saarto, sidoo kaleetana muuqaalka aad like saarto. channelka waxaan kusoo gudbinaa muuqaalo ku saabsan businesska online-ka, sidoo kaleeto lacagaha cryptocurrency-ga iyo xirfadaha maanta adduunka loogu baahan yahay. marka waxaan rajeynayaa in channelkan uu noqdo channel aad ka faa'iidi doonto hadduu Alle idmo insha Allah. hadda muuqaalkii maanta muxuu ku saabsan yahay? muuqaalkii maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan kaga hadlaynaa 3 lacagood haddii aad maalgashato runtii aad ka taajiri doonto mustaqbalka soo socda, waliba runtii aad iga soo mahad celi doonto hadduu Alle idmo insha Allah. haddaba lacagta u horeysa haddii aan ka bilaabno waxay tahay waa Solana. suuqa market cap waxay kaga jirtaa kaalinta 5aad. runtii 4 ayaa ka horeysa. runtii lacagtan waa lacag si xooli ah ku socota oo runtiina wax maynaysa aysan ku soconin. hadda intaan bilaabno muuqaalkan ka hor wuxuu ahaa haddii aan galno suuqadii gudaha usii galno inta aan bilaabo muuqaalkan ka hor wuxuu ahaa $190 halkii coins. yani waa 10 minute u dhaxaysan haddii u badnaa 10 minute u dhaxaysan intaan muuqaalkan bilaaban ka hor. haddeertaan 10 minute ka hor wuxuu ahaa $190 haddana $196. yani lacagtan waa lacag xoog ku socota, yani xooli ku socota oo aad oon rajeyna 2022 inay tagto $300 ka badan inay tagto laga yaaba, balse saadaalintu waxay sheegaysaa inay tagi doonto $300. haddii aan market cap suuqiisa haddii aan fiirin lacagtan iyo price-kiisa, lacagtan horta waxay qiimaha hadda waxay joogtaa $196. yani daqiiqad walba kor ay u socotaa kor. yani haddii aan sii fiirino market cap qiimaha lacagtan ku fadhiyo waa 60 trilyan ayuu ku fadhiyaa market cap suuqa. lacagta intaadan maalgashan ka horna waxaa la fiiriyaa market capkiisa 24 saac u dambeysay waxaa la gashtay 2 bilyan in ka badan. marka taas wuxuu ku cadeynaysaa in suuqani yani aad iyo aad u socda. yani price-ka 24 saac inta u dambeysay intuu kordhay waa $15. yani 24 saac gudaheed waxaa ku kordhay $15. yani waa lacag xoog u socota. haddii aan sii guda galno, haddii aan sii ogaano gudaha, haddii aan usii galno okay, haddii aan fiirno lacagtan qiimihii kasoo bilaabatay 2022 lacagtani hataa ma dhameen $1 hataa maray ahayd $1 hataa ma yani ma dhameen. yani 2022 bishii lixaad lacagtan waxay ahayd yani waxaa $1 dhameen iyo $1. marka haddeertaan waxay maraysaa waxay tagtay daraad $250 $260. yani lacagtan sida u socoto waxaa ka dareemaysaa market capka suuqiisa iyo price-ka iyo sidii aadka loogu iibsanayo. marka haddii aad maalgashan lahayd 2020 kaliya aad $100 ku maalgashan lahayd hataa ma dhameen, yani $1 hataa ma dhameen halkiis coin. haddii waxaad haysan lahayd 100 coin in ka badan kaliya. haddii aan 100 coin dhahno, haddii aan ku dhufano, haddii aan imaano calculator-ka, haddii aan 100 coin bas haddii xilligaasi iibsan lahayd $100 waa ka jiraa weli $100 iska dheh. $100 haddii aad ku iibsan lahayd 100 coins maanta wuxuu joogaa coinkii waa imisa? hadda coinkii waxuu marayaa last waa $196. yani xoog ku socdaa $196. yani waa $19,600. taasina waa faa'iido aad iyo aad weyn. sanad iyo bar $100 waxaad ku maalgashato waa $100 kaliya waxaad ku maalgashato $20,000 ku dhawaad haddii aad helayso. waad dareemi kartaa suuqan faa'iido taalo iyo lacagaha tirada badan taalo. runtii suuqan waa mustaqbalka lacagaha adduunka maamuli doono. cryptocurrency waa lacagaha adduunka ka shaqeyn doona mustaqbalka soo socda.
marka waxaan rajeynayaa walaalihii Soomaaliyeed in lacagtaani aad iibsataan, aad maalgashataan. qofkii lacag yar haysta iyo lacag badan haysta intaba lacagtaan qiimeyn kuma fadhisa, waa $196 kaliya. Solana aan lahaa waxaadna ka iibsan kartaa haddii aad fiiriso brokero badan ayaa jira. waxaad ka iibsan kartaa Binance, Robinhood, maxaa la dhahaa, brokero badan ayaa jira, crypto.com. meelahaad ka iibsan karto dhan waxaan kusoo dhigayaa linkii hoose, halkaasi waad ka iibsan kartaa, waan iska diiwaangeli kartaa. inshallah haddii lacagta halkaas kaga baxno, waana rajeynaya inaad iga soo mahad celi doonto lacagtaan. haddii aad maalgashato faa'iido aad ka heli doonto, waad iga soo mahad celi doontaa duwaalid inshallah. okay, haddii aan u gudubno lacagta labaad, waa Ethereum. waxay ku jirtaa kaalinta labaad. lacagtan runtii ayadana si xooli ku socotaa, waa lacagaha adduunka maamuli doono. Ethereum qiimahan market price-ka waa $4,110. ayada naftarkeeda daqiiqad gudaheeda intaas sameeyaan way cad kore u socotaa. yani waa lacag xooli ku socotaa. market cap-ka haddii aad fiiriso in ka badan in ku dhow 500 trilyan waa market cap-kiisa, 3% ayaa ku kordhay. yani daqiiqada u dambeeyay 24 saac u dambeeyay price-ka kordhay waa $135. 24 saac u dambeeyay $135 ku kordhay. marka 24 saac gudaheeda haddii lacag fiican gashan lahayd ayaaba ka qaban lahayd lacag aad iyo aad u badan. marka lacagta ayadana sidoo kale waxaad ka iibsan kartaa Binance, Robinhood, crypto, brokero badan ayaa jira, balse Binance ayaa u caansan. Binance aan ku fiican inaad ka iibsato. lacagta haddii aan sii fiirino gudaha u galno, qiimahay kasoo bilaabatay mar ayay ahayd 0.75 $1 mar ayay ahayd. saa ujeed 2.15 meelahaasi $1 ayay ahayd. 2.15 $1 ahayd. haddana shay $1 aad ka bixiso oo maantana $4,000 waxaad dareemi kartaa faa'iido meeshaan ku jirto. shay aad $1 ka bixisay haddii ay noqoto $4,000 qiimaha meesha ku jiro waad ogtahay. haddii aan dhahno waagaas haddii aad maalgashan lahayd waad waqtigaas uu kasoo tagay anaga walwalin, balse waqtigaa jirtaan la joogo ka faa'iideyso iyo sanadaha hadda soo socda. haddii aan fiirino tusaalahaan qofka waagaas maalgashtay 2015 qofkii $100 kaliya ku maalgashtay waagaas, yani dadka ka badan haysto ku maalgashay. waxaan ka hadlayaa dhalinyarada lacagta aan haysanin iyo dadka lacagta tirada badan aan haysanin oo lacagaha yar haysto. waxaan ka hadlaynaa $100 kaliya. qofkii waagaas $100 ku iibsaday waa 100 coins. haddii aan ku dhufano $4,000 hadeertaan marayso waa $400,000. marka haddii aan usii gudubno lacagta saddexaad oo ah dadka lacag haysta, dadka aan lacag haysan way maalgashan karaan, balse ma iibsan karaan hal coins oo dhan, balse wax un waad ka gashan kartaa hayraad ha badnaato. waxaad helaysaa wax yar ka mid ah coinskaasi ayaad helaysaa. marka Bitcoin daqiiqadii u dambeeyay 24 saac u dambeeyay price ku kordhay $2,000 waa $3,000 waa $2,500 ku dhow. waa inta u dambeysay 24 saac u dambeeyay ku kordhay. yani qofkii 24 saac gudaheed wax badan gashtay ama isla daqiiqadaas faa'iido badan ka sameyn kara suuqa. dad sanooyin ayay sugaan, dad daqiiqaday lacag badan ka qeybqaadkaas waa dad lacag badan haysto. haddii aad lacag yar haysto waxaa waajib inaad sanooyin sugto iyo muddo aad sugto si aad faa'iido fiican aad u hesho. suuqa lacag weyn ayuu ku fadhiyaa. isagana wuxuu kasoo bilaabay Bitcoin-ka maanta aad ujeedid oo $51,000 marayso. price-ka ay kasoo bilaawday 2013ka, 15ka iyo 8ka. yani 8ka $1 hataa ma dhamayn, $1 meelahaas ayuu haamaneynaa. yani shay hadda 2000 haddii aan fiirino oo haddii aan sanadaha haddii aan tagno, yani booska uu kasoo kacay Bitcoin 2013kii $100 hataa ma dhamayn. yani mar wuxuu ahaa $60, 70, 90 intaas ku noqonaya. yani $100 iska dheh. yani waagaas qofkii $100 gashan lahaa maanta milyan oo haysta ka badan. yani waxaa ogaanaysaa lacagtaani dad ayaa milyaneer ka noqday. marka waxaan rajeynayaa in lacagtaani aan sidoo kale ayadana Bitcoin aad maalgashato. waa lacag mustaqbal fiican leh inshallah. 2025ka waxaan rajeynayaa iyadana inay tagto 100,000 hadiisan kor u dhaafin. waxaan rajeynayaa adigana in aad maalgashato wax cun Bitcoin-ka. muuqaalkan intaas ayaan ku keenayaa 3 lacagood oo runtii qof lacag haysta iyo qof aan lacag haysan intaba maalgashan karo. siiba haddii aadan lacag dhaqaale haysanin lacagtaani Solana maalgasho
coins fiican ka iibso haddii wax yar aad haysato fiican. lacagta runtii xoogay ku socotaa daqiiqadaha second walba ayaa ku kordhaya, marka lacagtan Solana ayadana ayaysan ku dhaafin fursadeeda insha Allah. hadii muuqaalka hesho fadlan like saar, sidoo kale muuqaalo badan ayaa soo socda. waxaan rajeynayaa inaad channel ka faa'iidi doontaan. goordhown muuqaal cusub ayaan soo wadaa oo ah sida aad u dhisi lahayd suuq dropshipping adigoo isticmaalaya Shopify store alaabta China si aad ugu iibi lahayd website-kaaga waliba adigoo wax lacag kaaga bixin. sidoo kale marka alaabtaas laga iibsadana aad si toos ah ugu dalbi doonto China, sidaasna aad ku heli doonto faa'iido. muuqaalkaasi course full ah, isagoo course full ah oo soo socda insha Allah. waxaan rajeynayaa channel ka dhiirigelin doontaan.